gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe Marwo Fartuun Aadan Xeefo ayaa bogaadisay howlgallada lagula dagaalamayo maandooriyaha oo maalmaha dambe ciidamada amniga Hirshabeelle ay ka sameynayaan deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan gobolkan Shabeellaha Dhexe. Marwo Fartuun Aadan Xeefo ayaa sheegtay in muhiim tahay in laga hortago lagana sifeeyo gobolka waxyaabaha maanka dooriya sida xashiishka, khamriga kuwaasi oo dhibaato togan ku haya bulshada. saraakiisha ciidamada dowladda Hirshabeelle ayaa ku amaantay shaqada adag ay bulshada u hayaan waxayna ugu baaqday inay si laba jibaaraan howlgalladaasi. waxaan ognahay baryahan oo dhan in ciidamada ammaanka ay wadeen howlgallo ka dhan ah waxyaabaha maanka dooriyo. xaqiiqatan dadkii bulshada dhibaato badan ay u geysteen waliba dhalinyaradii waxay u geysteen saameyn aad u badan. marka waxaad arkaysaa gabdho dhalinyaro ah ama wiilal dhalinyaro ah oo taabuuga iyo xashiishka sida sigaarkii kale uu cabaayo. marka in ciidamada ammaanka madaxweynaha dowladda Hirshabeelle iyo wasiirka amnigaba amarka ay bixiyeen iyo ciidamada ammaanka oo iskaashanaya qaybahooda kala duwan waxyaabaha ay qabteen in xashiishkii, khamrigii dhalinyarada ay ku fasahaadayeen waan wax aad aan u bogaadinayo in laga sameeyo ka hortag. dhalinyarada waxay u tahay wacyigelin loo sameeyo maadaama indhahooda wax ay ku arkeen oo arkaysa khamro meel ku jirto, xashiish meel ku jiro, waxyaabahaas oo dhan waxaa fududeeyay ciidamada ammaanka. haddii ciidamada ammaanka aysan booliiska aysan awooddaas lahayn u maleynaya in la soo qabanayo u mahad celinaya ciidamada amniga booliiska iyo ciidamada kale intay iska kaashanayeen waxyaabaha maanka dooriyo sida loogu hortago. xaqiiqatan wax aad u wanaagsan. waxaan dhihi lahaa dadka farmashiyaasha waxaa lagu gadaa cirbido, waxaa arkaysaa qof intuu dhiiggiisa raaciyo isku duraayo dhowr maalmood hawada ka maqnaanayo. marka waxaan rajeynayaa inta dhiman in la dhammaystiro. ciidamada ammaankana u mahad celinaya booliiska maadaama dhalinyarada waxaas saameynta ugu badan ee u geysanayeen dhalinyarada xaqiiqatan dhibaato weyn ay ku haysay deegaankan. laakiin waa ilaahay mahadiis in maanta guri loo galaayo, guri loo baarayo. cid kasta oo arintaas saameyn ku yeelatani la marsiinayo sharciga oo in wixii laga qaado mar kale aysan ku dhicin. waxaan rajeynayaa dadka beeraha ku tabcanayo, dadka ganacsiga ka sameynayo dhammaan in il gaara loo yeesho maadaama hadda hawsha ay bilaabatay. waana ku faraxsanahay, waana soo dhaweynayaa baaqi uu soo jeediyay madaxweynaha dowladda Hirshabeelle anagoo ah dhalinyarada gobolkan waa taageersanahay. sidoo kale gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe Fartuun Aadan Xeefo ayaa sheegtay in kan urur ahaan ay wadaan wacyigelin ku aadan khataraha caafimaad ee laga dhaxlo maandooriyaha. hadda ka horey aan dhowr jeer uga hadlay aniga arrimahaas oo ahayd in laga sameeyo wacyigelin. hadda waxaa la sameeyay howlgal. waxaan rajeynayaa wacyigelin kale inaan ku sii darno oo dhalinyarada waxaas ay ka digtoonaadaan mustaqbalkooda ay saameyn ku yeelanay. waxay saameyn ku yeelanay wax kasta oo horumar ah. cunuga hadduu wax bara lahaa hadduu maanta intuu xashiish cabo beerihii aado dhibaato weyn ay ku tahay. wax badan aan aragnay, wax badan aan wacyigelin ka sameynay xaafadihii iyo dadkii intaan la hadalno dhalinyarada fagaara aan kula hadalno oo aan dhahno waxa la iska daayo caafimaadkaada dib u tahay. wasaaradda caafimaadka laftirkeeda iyo wasaaradaha kale inta ay qusaysa in wacyigelin la sameeyo maadaama waxaan caafimaad ahaan dhibaato ay u geysanayaan dhalinyarada. waa wax aad dhibaato aad u weyn leh. waxaan rajeynayaa in hawshaas la sii wadi doono annaga wacyigelinta aan sii wadayn haddii ilaahay idmo. waana u mahad celinaa telefishinka Hirshabeelle oo markastaba tilaabo horumar leh sii sameynayo in dadkeena wax loo sheegna aad u fiican tahay. dadka hadaysan wacyigelin helin haddii sidaan looga aamusan waxay ahayd dhibaato aad u weyn xaqiiqatan. laakiin haddeer ilaahay baa ku mahadsan in dhammaan dadkii ay garteen waxaan inay dhibaato leeyihiin oo ciidamada ammaankana si gaar ah ugu mahad celinaa. Maxamed Diite, Hirshabeelle TV, Jowhar.